بسم الله الرحمن الرحيم maanta anagoo ah guddiga caawin qaran waxaan joognaa hoteelka caanka ah ee weyn oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho oo ah waliba hotel taariikhi ah waana hoteelka Saxafi runtii hoteelkan iyo maamulkiisa aad ayaan ugu mahad celinaynaa guddiga caawin qaran anagoo ka socona maanta waxay noogu tabaruceen lacag gaaraysa $500 taas oo ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka iyo deeqda loo sameynayo ciyaartoyda Soomaaliyeed ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano jirada ee guulaha taariikhiga ah ka soo hooyay ciyaaraha bariga bartamaha Afrika haatan jooga finalka ciyaarahaas oo maalinta berrin la ciyaari doona xulka qaranka Tanzania marka amaan weyn ayaan u soo jeedinaynaa maamulka hoteelka Saxafi waxaana sidoo kale ugu duceynaynaa maamulka iyo waliba hoteelkaba in Ilaahay bashbash iyo barwaaqo u gaarsiiyo Ilaahay oo dhowro hoteelkan sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa ganacsatada kale ee Soomaaliyeed oo dhan ee Ilaahay wax siiyay in ay mataqaana caawiyaan oo ay ka qayb qaataan barnaamijkan deeq qaran oo aan wadno